حكى لي خلاص أمور صار سوق الله يحكي لي من كلامي wejiga isbedelka wejiga horta sheekan kaga bilaabaya sanadkii barka hor amba 2 sano inta u dhaxaysa waxa kaliya tan cunay waa chibis milix sonkor buskud waxa ii tarayaan waa energy yare aan ku noolaanaye ii saamaxay inaan milmilaqsado wadno yara bankareeyo adoo waxyaabahaas laakiin disadvantage amba dhibaatada lahayn inaba aan caadihin waxyaabahaas 24 hour maalin kasta waxii kala iimidhamin waxyaabihii kala misra dil soo dhigo matagi wax garowa amba wax cunto wadaneedna waan matagiyo marka lagu soo hadlaaqo cuntadayda dhani waxay ahayd buskud chibis saaxo soo kac buskud chibis saaxo soo kac marka nolosheeda hadaba nooca oo ekeed wad scare freezer wajigiisu soo ekaanayo yaa qiila yaro dadku waxay kula dhaqmayaan waxa uu eegtay sida caadiga ducaamo la hadlo dadku waxay kula dhaqmayaan sida uu eegtay marka dhowr habban ku xaliyay dhibaatada ah ee wajiga balloonka bilaha yar wajiga steps yar oo fudud hadad qaadina aan ku balan qaaday inaad dib u arkin waxaan face fat iyo waxyaabahan dhibaatooyinka ay ku sheegaan dadku wajiga sida ugu degdeg badan leed u bedeli karaysaa waxa weeyaan inaad horta biyaha ku jira wajigaaga ee badan aad meesha ka saartid maxaa biyaha kaws garanay ma biyaha cabisid biyaha badan ayaa wajiga galaya taas ay keenaysaa in wajigaagu balloon u ekaado maaha oo ilmo yar ka dhibo maaha waxba jira oo waxaas hadii aad maalin walba cuntid ku saamaxaya in wajigaagu uu ritain gareeyo amba jirkaagu uu hayo biyaha waxaasna waa milixda maanta biyo badan haddaad xoog u cabtid dehydrated baad noqonaysaa bilaa biyaa ayaad noqonaysaa biyuhu marka jirkaagu galaan markiiba kaadigu u bedelaa jirku sidaa caadigaa bay u socotaa laakiin haddii aad sodium amba milix kolbad kale u taqaantid milixdaa aad cunaysid waxay kaws garanaysaa amba ay keenaysaa in wajigaagu amba jirkaagu cellska uu biyuhu dhex galaan milixdaadu haddii aad u badan tahay maaha macnaheedu iska daa milixda maaha inaad wadadiiso milixdu waa wax aad u muhiim oo electrolytes maskaxda la gelinayo u saamaxaysa inay maskaxdaadu si fiican u shaqaysan oo ganacsa maaha inaad diisid waa inaad diirisid maaha haddii aad meesha ka saartid jannadii baad gelaysaa wax walba ku dhamaystirmaya saa wax uma shaqeeyaan wadkadaas milixda oo waxaa keenaya in uu jirkaagu biyaha hayo adigoo sometimes aan barulba kugu jirin ayaa waxa kaliya ka buuxa ay noqonayaan biyo yaa dadka qaar amba dadka badankooda aad arkaysid waxaa laga yaabaa baruurtaa dhan amba waxaa ka weyn gebigoodaba inaanay noqonba baruur ay noqdaan biyo wajigaagu haddaad arkaysid inuu puff yahay inuu yaraa kuusan yahay inuu oo yahay aanu qaab lahayn inuu shapes lahayn dee waxaa ugu weyna ka qayb qaadanaya waxa weeyaan biya Mira que se joga aí, então. Vamos lá. Ya. Sa uma sih made kama. Ay taad marka la hadlo. Inkastoo imka bulk ku jiro dee cuntadiisu aad u badan tahay doonayaan paakareeyo masal badan laakiin iyadoo ay sidaa tahay haddana waan dhaamaa diet-keygii hore anigoo cuntadiisu aansan imka ay u badan tahay uma badnaa laakiin markaa waxaa igu badnaa cuntooyinka unhealthy-ga oo waxa keenaynu goobo yara noqdo wajigo dee gebigiisuba lagu moodo 12 jir adoo nin weyna lagu moodo 12 jir amba ilmo yar waxa labaad kulli oo iska filaysaa oo sokortuna oo waxyaabaha ka qayb qaadanaya in kaliya tama inuu wajiga goobo iyo waxa noqdo iyadoo dhibaatadii leedahay waxa weeyaan horta waxa ku farsan cuntooyinkii xumaaya ee kale oo dhan appetite-ka waliba appetite-kii wanaagsanaa kuma fadhiisay cuntooyinka wanaagsan kugu riixay waxa ku farsaydo appetite-ka xumaay cuntooyinka xun kugu riixay hadad sokortaadu badan tahay inta caadi ah cuntid wad karaysaa markiiba cuntooyinkan caadiga sababtaa wax ka macaan bad wadaade waxyaabo ka wanaagsan bad wadaa ma doonaysa hadii boqol aad tahay qof caadi laga dhigay maskaxiyan boqol baad ka tahay bakadaas skinkaagii inuu xumaaday saameynaysa in cuntada kale ku furnaaday saameynaysa oo finankan iyo waxyaabahan aad aragtid maaha dhibaatadeedu skin care malihid amba maxaa cream hebel ma marsatid serum ma marsatid sunscreen ma marsatid maaha dhibaatooyinku waxa weeyaan dadkeenii hore dadkeenii hore skinkii ugu smooth sanaabi lahaa skinkii ugu wanaagsanaa waayo iyagoo wax allaale wax products aan isticmaalin waayo sababtoo ah dadkani ma isticmaalin amba diet-kooda wuxuu ka saabsanaa waxyaabaha hagaagsan iyagii wax u taraya sidii wax usoo qaraabsadaan amba wax qabadkooda uu ahaado wax tamaama dee wax wanaagsan
labada haddaad aad u yaraysid waa waxa ugu degdega badan leh aad samayn karsid si aad wejigaaga ugu deshid. Wejigaagu sida caadiga the structure uu leeyahay jawline waad leedahay, qof kastaa uu leeyahay jawline amba haaloj adu waxyaabihii dee moodaladan iyo waxyaabahan tiktokan ka aragnayo dadkan iyo waxyaabihii dee faaniyaan qof walba uu leeyahay. laakiin waxa keliya tay kaa hortaagan waxa weeyaan amba biyaha yar amba baruurta amba adu waxyaabaha waxa saddexaadna ood garanaysaa dee waa baruurta. laakiin kuma saaraysid baruurta sida caadiga labada hore ka degdeg badan. labada hore waxay qaadanaysaa dad meel iska daysid wiilka bacdiba iyada durbo waad arkaysaa difference-ka isbedelka durbo waad arkaysaa. laakiin hadday noqoto baruurta waxay qaadanaysaa 6 bilood 5 bilood kolba intay tahay baruurtaada bay ku xiran tahay. haddii aad u buurantahay laga yaabaa inay qaato 6 bilood 7 bilood. haddii aad dee miisaankaagu aanu saa usii badnayn dhexdhexaad iska tahayna laga yaaba inuu qaato 2 bilood 3 bilood wax saas ah. marka baruurtii aad iyo aad ay u fududaanaysaa inaad meesha ka saartid haddii aad sokortii iska daysid. sokortu waa waxyaabahan kugu riixaya inaad cuntid waxyaabahan aan wax allaale waxay kuu tarayaan aanu jirin. dietna kun video ka sameeyay imikana waxyaabo ka taataabanaya markaas waa caadi oo taaban karaysaa channelka oo taaban karaysaa video badan oo dietkan ka sameeyay. laakiin sida ugu wanaagsan ee diet u samaysan karaysaa amba cunto hagaagsan oo kuu samaysan inaad baruurtii meesha ka saartid, sokortii meesha ka saartid, milixdii aad iska yareynaysid oo step by step ina waxaan ku wadid sida caadiga tallaabo yar qaad kolba tallaabooyinkaa yaryaraad qaadaysid ayaa kuu saamaxay inaad dee wixii aad meesha ka saartid. wiiga koowaadba kolba halbad isku sii badinba madaxaabaa isku sii xanuunsan hal waqtiyuun bedel. saddexdaa waqti amba waqtiyada badan inaad cunaysid hal waqtiyuun bedel. wiiga labaad waqti labaad kala bedel, wiiga saddexaadna waqti kala bedel, wiiga afraadna waqti kala bedel. haddii aad waqtiyo badanna aad arkaysidna cunaysidna dee 3 waqti halkaaba kusoo daala. markaad bedeshid waqtiga saddexaad halkaaba ku jooji. haddana waxaa u timaadaa waxyaabihii dhexdhexeed cunaysid inaad meesha ka saartid ayru saa kuwad wax allaale wax aad saa usii madax xanuujinaysid ma jirto. haddaba markaad wejigii baruurta meesha ka saartid haddaad aragtid inuu joogu yari yahay gebigaaguba dee structure-kaagu yahay yuu yardee oo gabadh aad u samaysan tahay. haddaad gabadh tahay alxamdulilah xaggaasi kuugu joogtaaba waxyaabaha ugu magaraysa. laakiin haddaad arkaysid nin ahaan inaad dee aad shaybkaagu yahay yacni jinkaagu sidaa yari yahay oo dee dumarkaa lagu yaqaana sida caadiga inuu halkoodana xoog u yuugnaato aana dee joogu aanu jirin oo halkana booban tahay. taasoo kale waxaad samayn karaysaa inaad testosteronka testosteronka waxyaabaha ugu weyna kaga qaadato inuu dee joogu iyo waxyaabaha soo yar weynaadaan. taasna waxaad ku samaynaysaa inaad waxyaaba culus qaatid amba jimkan amba guriga waxyaaba ku dhex sasamay labada option buu ku jira. madaxaabaa isku sii xanuujin waaba intaa waxaan dhanay dadku kuu sheegayaane waxaygan waa inaad samaysaa waxaygan waa inaad filler qaadataa waa inaad exercise-yadaa samaysaa. waxyaabahaasoo dhan anugu horta kaama dhacdhacnayn muhiimiin kuwan social media soo dhigaya waxyaabaha kama hadlayo. waxaan jeeda dadkan la kulmay qof keliya ta u yidhaahdeen iyo waxaas uu ii shaqeeyey. dad badan oo tijaabiyo aan arkay laakiin hal qof oo yidhaahday waxaas uu ii shaqeeyey ma jirto. markay runtu taa tahay dee waxyaabihii shaqeyn u bay tahay inaad samaysid. afartaa yara shay baa shaqeynaya bro. markaa horta way intaa haddaad u baahantahay coaching aan kaaga caawinayo diet inaan kuu sameeyo kuu fudud kuuna macaan inuu kuu fududaado inuu ku macaanaana waxay kuu samaysaa inaad joogtaysid iyo program exercise oo kuu fudud sugna waxaad taabataa linkiga description-ka yeelan. mar walbana horta aad iyo aad baad u mahadsantahay kuugu macnaanaya inaad daawatay oo soo dhamaystay videogan dhan 20% weeyaan 80% waxa weeyaan waxqabadkaaga ku dar waxqabad bro. yaa aad iyo aad noo mahadsantahay.